بسم الله. dhalinyarba waxay soo weydiinaysaa waxay yidhaaheen war sigadu dhib ma laho dadko dhan baa sigaysto oo waa kanoo laabaas weeye maxaad uga qaylinaysaa iyo wakaasoo waxaan leeyahay horta fiishka kalluunku badda markuu ku jira biyaha ku dhex jiro haddaad ku tiraahid kalluunow biyahani qorax baa jirto oo waa kanoo berri baa jiro oo aad uga sheekaysid berri iyo qorax iyo waxaa uga sheekaysid fahmi maayeyso weligiiba biyaha kamuu bixin ma garanayo waxaan biyo ahayn ma yaqaano markuu fiiskaasi biyaha ka baxo unbuu garan karaa in qoraxdaas iyo jawiga kale iyo biyihii kii u fiicnaa markaasuu garan karaayo kombar garan karaa oo isbarbar dhigi karaa laakiinse intuu biyaha ku jiro dee weligiiba biyuhu ku jiray ma arki karo faa'iidada iyo khasaaraha isma barbar dhigi karo marka dhalinyaro badanoo waxaa jirta 4 sano 3 sano 2 sano sanad iskaga jiray waxan habeen kasta siigaysanaya gabadh yaroo dabada ruuxaysa ruunay raaxa naasa iskaga mashquulsan qaar laga yaaba inay filmo xunxun nacuudu billah waxaa sii daawadaan oo kasii daran yihiin baa jira marka ma garan karaan dhibaatada uu leeyahay maskaxiyan iyo jimsiyan iyo diiniyan iyo wax kasta uu ku geysan karo sigadan iyo filmada xunxuna daawanaysa ay ku geysan karaan ma fahmi kartid oo kamaad dhexbixina waa waxaad ku dhex jirtid marka waxyaalaha ay sababto oo maskaxiyana waxyaalaha badan ay sababto maskaxiyana waxaa ka mid ah waalida buufiska khakhaayirka social anxiety-ga lack of yani kalsooni la-aanta isku buuqa dhabar xanuun xiniya xanuun kacsi la-aan marka naagta u tegasid bidaar dhudhuna xanuun welwel wax la soo koobi karo indha la-aan oo indhaha fishinkooda kaa xumaado bishimaha ku jajaba indha casaan daal aad mar kasta daalaysid mental focus waxaa ku yar waxaa laga yaaba inaad ahaan jirtay student ku fiican oo classka ay keena imtixaanada qur-aanka 2 bog xafida ma samayn kartid si haddaad keentid waad ayaan badan tahay mental focus waxay yidhaahaan waxaad rabtid goolkaad lahayd ma gaari kartid oo concentration ma lihid hami iyo dadaal aad wixii aad rabtay ku gaaraysid ma lihid wuu kaa qaadayaa waxyaalahaas oo dhan biyahan kaa imanaya ayaa sababaya oo biyuhu waxay yihiin waa nafaqada jirkaaga weeye oo meel kasta oo jirkaaga ka soo go'aysa waa minerals oo dhan weeye waa vitamins waa magnesium waa phosphorus oo maskaxda ka timaada waa magnesium waa calcium waa zinc waa vitamin B12 oo dhan waxa weeye waxay yidhaahaan sigada biyaha yar ee qaada barkeeda kaa yimaada waxay u dhigantaa oo ka nafaqa badan tahay dhowr kiilo oo ka borotiin iyo nafaqa badan tahay dhowr kiilo hilib lo-aad ah 10 xabo oo kuna 3 xabo 6 xabo oo limbalbeelma 20 xabo lindanaana intaasoo wax oo kale bay kasii nafaqa badan tahay 2 week ilaa 3 bilood bay qaadanaysaa wixii kaaga baxay hal mar inay jirkaaga ku soo noqdaan hal mar wixii yaraaya kaa baxay bal ka waran adoo habeen kasta ama maalin kasta ama wiil kasta sii daynaya markii aad xaas u taga sidii qof kale jacaylkii iyo neeftiisa iyo muxubadiisa iyo dhunkashadiisa iyo markaasaaba la qaatay oo waxay leedahay markii aad siigaysatid waa niyad xumaanaysaa markiiba niyad xumaad dareemaysa waxaan maxaad u samaysay baad suuranaysaa niyad xumada aad isgelinaysid baa waxay keentaa waxa la yidhaaho toxic shame kaas waxa weeye
ونيت شبي أو نفط هذا إس الكامبيس ونفط هذا إسمع عسيد بيك أنت تصبح حتى وحكو كإنسان نفسيا قف إن النفط هذه ما تضيع تروي ما إسمع عديد ماركا ووحن مهمة دالة نفقة دالة وحن يركاب حياة marka waxaan yar waa inaad ku dadaashid waxaan waxa weeye dhididkaaga dheecaankaagi wax kasta weeye dumarku xitaa way garan karaan inay ishaadu way daciifaysaa indhaha ku casaanayo ishaadu way daciifaysaa dumarku ishaada ka arki karaan inaan shahwa kugu jirin waxaan maadadan testosteronka la yidhaaha ragga awoodda siisa baa biyahan ku jirta kaa baxaya marka markasto aad biyo baxdid raganimadaadii baad daciifaysaa iyo quwadaadii waa waxa xitaa timaha kaaga soo bixi laayihiin timaha u loosgaraynaysa garka iyo safka meel kastaan timaha kaa soo baxina timaha u loosgaraynaysa raganimada baad daciifaysaa naagtu way arki kartaa marka iska daysid waxyaalaha ugu badan ee arkaysid maxaa ka mid ah inaad markiiba testosteronkaasi kor u kaco oo jimsigaaga xoog yeesho oo tima kaasoo yaacaan inay indhahaagii soo noqdaan in social anxiety-ga iyo buufiska iyo khaqaayirka iyo waxaasoo dhan waxyaala